kulan wacan saaxiibayaal halkaad iga daawanaysaan waa Asjaani aniguna waa saaxiibka Soomaalida Asjaani isku noqod wanaagsan oo xiiso leh xamdi galgacal iyo waliba gabdho kale ayaa si live ah barta TikTok-ga uga soo galay video halkaas ayayna dagaal si toos ah loo daawanayay ku dhaxmaray haddaba daawadayaal gabdhahan sida live-ka isku dilay ayaa la sheegay inay keentay dirirtooda arrimo qabiil ayagoona kala difaacay qabiilada ee ka soo kala jeedaan haddaba arrintan la yaabka leh ee ka dhacday wadamada Yurubta ayaan warbixino in kaga haya xamdi galgacal iyo waliba gabdhihii kale ee isdagaaleen ayaa haatan la geeyay xabsiga ayadoona laga yaabo inay wajahaan kiisas aad u culus haddaba xogahaas iyo arrimo kale aadan kala socon ayaan kula socodsiin doonaa daawadayaal aad ku daawan doontaan muuqaalkan intaanan u guda gelin muuqaalka fadlan marka hore janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe saaro videogana like saar sidoo kale page-keena Facebook isna follow soo dhaw si aad ula socotid muuqaalada halkaan aan soo galino gabdho Soomaaliyeed ayaa si live ah isku dilay ayadoona halkaasi ay ku daawanayeen dad cadaan ah dadka cadaanka ah ayaa kala celin waayay gabdhaha sida live-ka isku dilayay gabdhahan oo mid kamid ah lagu magacaabo xamdi galgacal ayaa si live ah barteeda TikTok uga soo gashay dagaal hore oo iclaamisay oo kala dhaxeeyay iyada iyo waliba gabdho kale gabdhahan ayaa isku dagaalay arrimo la xiriira difaacidda qabiiladooda ay ka soo kala jeedaan haddaba ila daawada muuqaalka dagaalka live-ka ah
caan ku ahaayeen orod bal saddexdan naagooda waaweyn oo isoo doontay maanta anoo ilmahayga ciyaarsanay daawasan eriyada orodka u fiirsada adar malte waan wada joognaa xabad si wardeen daawo balas xabad baan inii cunayaa walle adar laandheernimo waxaa la dhahaa naagta intii ku qabatay ee ku sabaaxdaysay intii ku legiday kugu dul sheekaysay haddana kugu dul sheekaysay inta waliba kugu dul nastay daawo adal xabad baan saa inigu cunay inigoo saddexa hota mid waxba kama sheeganayo laakiin laba iskugu kaytay labo kaamaradaha intana la duubin labo ay ahaayeen wiil Soomaali ah ayaa mid iga qabtay oo meesha taagnaa booliskana ii raacay maqaarti furay waxaan maanta ka guuleystay waa wiilka Soomaaliga iyo cadaanka arkay xaq darada wiilka xaq darada Allah ma saabu sheekeen saxda ma ay daaro أفكريس كحيران كيدا صدحنا أقول ويا I called the police. راح أخذ الباشا أخذ الباشا سؤالي حاجة كامل من عقل راد مين تعرفه الله بقصدي تيمو حوجا ما يسوي يرد أنت وديك أنا مستحضرة الله بس أقول إني كده قلت لنا يا هذا Oh no, suspected now. Hey, up you go. Up you fucking go. Now. Up you go. If you don't, I shoot you. Up you leave her. قصلي سيدا يرانو كاكايو يا هيا حمدي كاكا اوكي حمدي كاكا كنتري ولا يبري wararka hadda soo baxaya ayaa sheegaya Xamdi iyo waliba gabdhihii kale isdagaalay in booliska ay soo qabteen jeelkana la dhigay waxaana la sheegayaa in arintooda ay noqon doonto mid kiis culus ah maadaama Xamdi laga haayo fiidiyoga ayadoo oo wadata midi taas oo dhibaato geysan kartay markii loo fiiriyo wadanka ay joogaan oo wadan sharci leh ah waxa ay hilmaameen ayaa ahayd in Soomaalida kala duwan ee ku dhaqan wadamada kala duwan ee Yurubta in inta badan wadamadaasi looga aqoonsay oo kaliya inay ka soo jeedaan Afrika gaar ahaan Soomaaliya balse aysan jirin cid u taqaan qabiilada ay ka soo kala jeedaan halkii ay isdugaasho lahaayeen oo magaca Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo islaamnimo isku difaacan lahaayeen ay qolo u kala baxeen ayagoona halkaasi si arxan daraha isku garaacaya waxa maalmahan ku soo badanaya baraha bulshada arimaha la xiriira qabiilada oo loo kala safanayo haddaba daawadayaal arintan yaab kale iyo waliba gabdhahan xabsiga la geeyay wixii ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaad kaga bogan doontaan haddii ay biiraahdo waad ku maasantahay sida u daawatay muuqaalkan intaan muuqaalka xiga ku kulmayno waa saaxiibka Soomaalida Asjaan Oodile nooli kulanti